ururka wadamada dhoofiya shidaalka ee OPEC waa urur joogto ah waana urur dowladeed oo lagu abuuray shirkii Baghdad ee socday September 10 ilaa September 14 1960 asaasayaasha ururka waa Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia iyo Venezuela. shanta xubnood ee asaasay ururka ayaa markii dambe waxa ku biiray Qatar sanadkii 1961 waxaana joojisay xubinnimadeedii Janaayo 2019. Indonesia ayaa ururka OPEC ku biirtay 1962 waxaana hakisay xubinnimadeedii Janaayo 2009 dib ayayna u howlgelisay Janaayo 2016 laakiin waxay go'aansatay inay mar kale laasho November 2016. Liibiya ayaa ururka OPEC ku biirtay iyana 1962. Imaaraadka Carabta ayaa iyana ku biirtay 1967. Algeria ayaa iyana ku biirtay ururka OPEC 1969. Nigeria ayaa iyana ku biirtay 1971. Ecuador ayaa iyana ku biirtay 1973 waxayna hakisay xubinnimadeedii December 1992 dib ayayna u howlgelisay October 2007 laakiin waxay go'aansatay in ay ka noqoto xubinnimadeeda wax ku oolka ah 1 Janaayo 2020. Angola ayaa 2007 ku biirtay. Gabon ayaa ku biirtay ururka OPEC 1975 waxayna joojisay xubinnimadeedii January 1995 laakiin waxay dib ugu soo biirtay bishii Luulyo 2016. Equatorial Guinea ayaa ku biirtay ururka OPEC 2017 iyo Congo oo iyana ku biirtay 2018. OPEC waxay xarunteedu ku lahayd magaalada Geneva ee dalka Switzerland shantii sano ee ugu horeysay ee jirtay waxaana loo raray Vienna, Austria September 1965. ujeedada OPEC waa in la isku duwo oo la mideeyo siyaasadda batroolka ee dalalka xubnaha ka ah si loo helo cadaalad iyo qiimo xasiloon oo soo saarayaasha batroolka ah, hufnaan dhaqaale joogto ah oo loo keeno wadamada soo saara batroolka iyo soo celinta hantida kuwa maalgashanaya warshadaha batroolka.